waxa ay ahayd gabar yar oo aanan kala aqoon halka ay u socoto. Inkastoo ay ka imaaday dugsiga Qur'aanka, waxa ay soo istaagtay meel baabuurta laga raaco si ay markaas gurigeeda u gaarto. Isla markiiba gabadhii waa la afduubtay. Gabadhii qaybta dambe oo gaariga ayaa lagu riday. Ninkii gaariga ayuuna watay. Gabadhii inta meesha ay ku jirta aad ayay u naxday. Waa ay walwashay, laakiin wax walba waxa ay ka dhigatay in qalbigeeda Allah ay ku xirto. Waxaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas oo aad u xanuun badan. Waxa ayna taabanaysaa meelo fara badan. Haddii adiga ay kugu dhici lahayd maxaa sameyn lahayd? Falcelin halkee ka bilaabi lahayd? Qaybta dambe oo gaariga haddii lagugu xirto. Gabadhan waxa ay ka imaaday dugsi, kadibna waxa ay soo istaagtay meel baabuurta laga raaco. Kadib baabuurkii ayaa ninka soo degay. Gabadhiina waa uu afduubtay. Kadibna waxa uu ku riday qaybta dambe ee gaariga. Gabadhii ninkii waa uu soo watay. Ma aysan soo gelin qalbigiisa in uu aabba yahay. Ma aysan soo gelin qalbigiisa in gabadhani oo kale uu dhali doono. Ma aysan soo gelin in gabadha ay ka imaaday dugsi Qur'aan oo afkeeda maanta oo dhan kelmadaha khayrka badan oo akhrinaysay. Gabadhii in muddo markii uu soo waday qaybta dambe ayay ku jirtaa. Allo asxaan darana miyuusan ka fekerin in gabadha naqas xitaa uu ku dhigi karo. Sidaas oo ay tahay waxa uu imaaday gurigiisii. Gabadhii gurigii markii uu imaaday, laakiin gabadhu ma ogo oo waxa ay ku jirtaa qaybta dambe oo gaariga. Guriga markii uu keenay, waxa uu bilaabay in qaybtii dambe ee sanduuqa gaariga uu furo si gabadhii uu la soo baxo. Wax walba uu sameeyo waa uu furi waaye. Gabadhii duco Qur'aan akhris ayayna wadaa oo mar walba waxa ay Allah ka baryaysay ninkan shartiisa in Allah uu dhaafiyo. Ninkii guriga markii gaariga uu keenay si walba uu yeelo waa uu furi waaye. Kadib waxaa la gaaray salaadii maqrib. Kadibna waxaa bilowday aadaankii maqrib. Waxa uu iskugu yeeray dhammaan dadkii xaafadda joogay si markaan gabadhan loo badbaadiyo. Waxa uu sheegay in gabar halkani ku jirto, la doonayana in laga soo bixiyo maadaama uu cabsaday in gabadhu naqasku ku dhago sidaasna ay ku dhimato. Laakiin dadkii oo idil waa ay wada imaadeen. Hal qof oo gabadhii ka soo furo meeshiina waa la waayay. Dadkii oo idil yaab ayay ku noqotay xaaladda meesha ka jirto iyo mucjisada meesha taagan. Markaas kadib waxaa wadada soo maray nin shiiq ah, waxaana loo sheegay sida ay wax u dhaceen. Kadibna ninkii shiiq ahaa wuxuu bilaabay Qur'aan akhris. Qur'aanka ayuu akhriyay sidoo Qur'aan u akhrinayay, asagoona Allah ugu baryay gabadha halkaas ku jirto in Allah ayadoo caafimaad qabto uu soo badbaadiyo. Muddo kadib gabadhii meeshii waa ay ka soo baxday waana la furay. Gabadhii oo caafimaad qabto, laakiin dhididka ka baxayay iyo kulaylka aad ayuu u sareeyay. Gabadhii waa markii ay soo baxday ayuu ninkii shiiq ahaa weydiiyey sida wax u dhaceen. Markaas ayayna gabadhii waxa ay ku dhahday, waxaan anigu ka soo baxay dugsi Qur'aan, kadibna ninkan ayaa i soo xaday. Qaybta dambe ee gaariga ayuuna igu soo ritay. Dadkii meeshii joogay aad ayay ula yaabeen. Markaas ninkii shiiqa ahaa ayaa gabadhii waxa uu weydiiyey sida ay ku badbaaday iyo waxa ay sameysay. Markaas ayuu gabadhii waxa ay ku dhahday, waxaan akhristay aayatul kursi, sidoo kale suuratul ikhlaas, birbil falaq, birbil naas ayay dhahday. Markaas kadib ayuu shiiqii waxa uu weydiiyey ma qalbigaada ayuu ku soo dhacay. Markaas ayay gabadhii dhahday, waalidkayga qaasatan hooyo macaan ayaa mar walba i oran jirtay mar walbo kelmadaha khayrka badan ama aayadaha Qur'aanka qalbigaada ku xir, qof walbo aragtidne
hubaali waxaa ah in uusan waxba kuu geysan karin. Qisadan waxaa ka baraneynaa wax walba oo kugu dhaco in qur-aanku uu yahay xijaab, mar walbana oo dhibaato la kulanto xusuusna Allahaada oo qalbigaada ku xir. Waxaa idiin soo gudbinayay anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. Waxaa ka daawanaysiin Hooyga Qisooyinka barteena YouTube-ka Socdaal 24, aaladeena TikTok-ga Socdaal 24, page-keena Facebook-ga Mahad Sheekh Abuukar. tani intaa ku kulmi doono qiso noocan oo kala saaxiibka sharafta badan dhammaad ilaa bilow nala joogo muuqaalkeena. waa ku mahadsantahay saaxiib.